السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقياسي kartaa sidaad dareemi lahayd haddii aad aragto madaxaaga oo qof kale jirkiisa ku beeran mase laga yaabaa inaad ogolaato in madaxaaga laga jaro adiga misna lagu beero shakhsi kale. waan ogahay tani ma ahan su'aal xigmadeysan, sidoo kale waxaa laga yaabaa badankiina inaad igu dhahdaan maxamed maad waalatay, sidee baan u ogolaan in madaxayga laga jaro laguna beero ruux kale? waase qofka ogolaanaya arrinkan foosha xun. waan ka xumahay, waan jeclaan lahaa aniguba in qofna uunan ogolaan arrinkaasi, balse way dhacday. bishii Abriil ee 2015 nin 30 jir ah oo u dhashay dalka Russia ka oo lagu magacaabo Valery Spiridonov wuxuu ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay si uu u noqdo qofkii ugu horeeyay ee taariikhda bini'aadamka ka oo lagu fulinayo qaliinkii ugu horeeyay ee madax bini'aadam lagu beerayo jir kale, isagoo ka jawaab celinaya hadalkii uu soo jeediyay daktarka reer Talyaani ee Sergio Canavero ka oo sheegay in la gaaray xilligii madax bini'aadam jir kale lagu beeri lahaa, asagana uu diyaar u yahay in uu fuliyo qaliinkaas kuna kalsoon yahay 90% in uu ku guuleysan doono. muuqaalkan ayaan kaga hadlaynaa faahfaahinta qaliinkaas iyo waliba dhibaatooyinka lagala kulmi karo. magacaygu waa Maxamed Xuseen, ku soo dhawaada xalqadeena maanta. fikradda ah in madax lagu beero jir kale ma ahan wax ku cusub taariikhda, balse waa wax qarniyadii ugu dambeeyay dhaktarada ay tijaabooyin badan ku wadeen. sanadii 1908 dhaktarada lagu kala magacaabo Charles Gathria iyo Alex Carrel ayaa waxay isku dayeen in ay madax ka soo jaraan kuna beeraan jirka kale iyadoon madaxa gaasi la jareen, yacni ayga oo madaxiisii leh ayaa madax kale lagu beerayaa, balse qaliinkan wuxuu ku soo gabagaboobay guuldaro oo aygii dhowr saac kadib uu dhintay. sanadii 1959 dhaktarka reer Russia ee Vladimir Damakhov ayaa wuxuu go'aansaday in uu qaliinkan dib u tijaabiyo, asagoo sheegay in uu hormariyay dhowr farsamo oo u ogolaanaya in qaliinkan uu ku guuleysto. sidii ayuuna sameeyay, eegii madaxa labaad lagu beerayna waxay awood u yeesheen in ay wada noolaadaan, labadii madaxba wax arkaan misna uu socdo, sidoo kale biyo cabaan ilaa iyo 26 beri. kadib 26 beri waa ay geeriyoodeen. sanadii 1965 waxa arrinkii dib u furay daktarka lagu magacaabo Robert J. White, isagoo marka la yimaaday qorshe cusub. wuxuuna tijaabadan ku sameeyay daanyeer, balse halkii daanyeerka uu madax labaad ku beeri lahaa, wuxuu go'aansaday in madax dhan uu ka jaro, madax cusubna ku beero. almuhim qaliinkii waa uu dhamaaday. dhowr saac kadibna daanyeerkii wuxuu bilaabay in uu indhaha kala qaado, balse saacado kadib waa uu dhintay sababo ka jira xididada dhiigga geenaya madaxa cusub ee jirka lagu beeray. sanadii 2012 dhakhtarka reer China ee Xiaobin Ren ayaa wuxuu soo saaray warbixin uu ku daabacay qaliin uu ku sameeyay jiir, isagoo madax cusub ku beeray jiirka kale. wuxuuna sheegay in uu diiradda saarayay si uu xididada dhiigga jirka iyo kuwa madaxa uu si la hubo isugu xiri lahaa. wuxuuna sheegay in jiirkan uu noolaa ku dhawaad 6 bilood. kadib dhammaan isku dayadan ee fashilmay, waxa yimaaday daktarka reer Talyaani ee Sergio Canavero, isagoo shaaciyay sanadii 2013 in uu diyaar u yahay si uu qaliinkan ugu fuliyo qof bani'aadam ah, misna uu ku kalsoon yahay in 90% uu ku guuleysan doono, balse ay tahay in la helo shakhsi aqbala arrinkan. haddeetan waxaa laga yaabaa inay idinka dhex guuxayso su'aasha ah, yaa lagu fulin rabaa qaliinkan? qofka la rabo in madaxiisa la qaado kadib jir kale lagu beero waa 30 jir u dhashay dalka Russia ka oo lagu magacaabo Valery Spiridonov. Spiridonov wuxuu la tacaalayaa cudur ku dhaca hanaanka neerfaha ee muruqyada ka oo sababa in uu qofka noqdo paralyzed. si tartiib ah ayuuna cudurkaasi ugu faafayaa dhammaan murqaha ee jirka, iyadoo qofka cudurkaasi qaba uu ku sababayo culays dhanka neefsashada ah, taa oo ugu dambeyn dhalin doonta in uu qofka asagoo da'yar dhinto. wax daaweyn ah oo lala gaaro qofkaana ma jiro. bal sidee ayuu u dhici doonaa qaliinkan? Dr. Sergio wuxuu soo bandhigay qadada uu ku howlgali doono, wuxuuna sheegay in ay tahay in la helo 2 shakhsi, qof jirkiisa tabarucaya iyo qofka qaadanaya jirka. qofka jirka qaadanaya waa in maskaxdiisa ay tahay maskax wanaagsan, balse la ildaran xanuun dhanka jirka ah sida paralyska. qofka jirkiisa tabarucayana waa in uu yahay qof maskax ahaan dhintay, yacni dhibaato ay kaga dhacday maskaxda taa oo aan dawo lahayn ilaa inuu qofka dhinto mooyaane, halka jirkiisa kale uu wanaagsan yahay, wax dhibaato ahna uunan qabin. qofka jirka qaadanaya madaxiisa ayaa la soo jari doonaa, kadibna jirka kale ee qofka fiican ayaa lagu beeri doonaa. sidoo kale waxaa loo baahan yahay kaliya koox dhaqaatiir ah oo ka kooban 150 qofood, 36 saacadood oo qaliin ah iyo waliba lacag dhan $10 milyan,
taa oo suurtagelinaysa arrinkan. Wax waliba in afka laga sheego ay fudud yihiin, balse maxaa dhibaatooyin ah oo lagala kulmi karaa? Dhibaatooyinka lagala kulmi karo qaliinkan waxaa ka mid ah qofka marka madaxiisa la jarayo, yacni waxay ka dhigan tahay in xididada dhiigga ee maskaxda geenayeen la jaro, taa oo keenaysa in maskaxdii ay dhimato, shaqsigiina uu sidaa ku dhinto. Balse Dr. Sergio wuxuu sheegay xalka ay la iman doonaan, ka oo ah in ay hoos u dhigi doonaan heerkulka madaxa misna ay qaboojin doonaan. Dabcan marka xubin la qaboojiyo waxay yareyn doontaa shaqada unugyada xubintaas, sidoo kale waxay hoos u dhigi doontaa baahida oksijiinta ee xubintaas, taa oo suuragelinaysa in ay xoogaha noolaato kadib marka ay weyso oksijiin ku filan. Dhibaatada labaadna waxay ka taagan tahay jaridda spinal cord-ka. Sidaan ognahay, spinal cord-ka wuxuu ka kooban yahay malaayiin oo unugyo dareen ah, wuxuuna isku xiraa maskaxda iyo jirka. Shaqadiisuna waxay tahay in uu fariimaha u kala gudbiyo jirkaaga iyo maskaxdaada. Tusaale ahaan, dareemaha sida kuleelka iyo qabowga ee maqaarku dareemo in loo diro maskaxdaada si ay ula tacaamusho. Haddii gacantaadu ay taabato shay kulul, isla markiiba gacantaada waad la soo boodaysaa. Iyo sidoo kale in amarada maskaxda ay soo bixiso uu u soo gudbiyo jirka kale. Tusaale, haddii gacanta qaad aad istiraahdo, in amarkaasi maskaxda ka imaaday uu u gudbiyo muruqyada gacanta, sidaana gacantii ay ku dhaqaaqdo. Dhibaatadan waxay tahay unugyada uu ka kooban yahay spinal cord-ka waxay gebi ahaanba ka duwan yihiin unugyada kale ee jirka. Ma awoodaan inay isqaybiyaan ama ay dib isku soo cusboonaysiiyaan sida unugyada kale. Haddii marka la jaro ama ay dhibaato qofka ka soo gaarto spinal cord-ka, waxaa meeshaasi ka samaysmaya nabar, mar kalena suurtagal ma noqonayso in ay isku yimaadaan. Marka jaridda ama dhaawacidda spinal cord-ka waxay ka dhigan tahay in ay kala go'day xiriirka maskaxda iyo jirka, taa oo dhalinaysa dareen la'aan iyo paralyze ku yimaada murqaha jirka. Waana sababka dadka dhibaatada halkaasi ka soo gaarto loo yiraahdo ma lahan daawo, qofkan oo weligiisa paralyze ayuu ahaan doonaa. Sababtuna waxay tahay dhakhtaradu ma awoodaan in ay dib isugu soo kabaan kadib markii spinal cord-ka uu kala go'o. Balse Dr. Sergio wuxuu leeyahay, waxaan hayaa xalkii ii suurgelin lahaa inaan isku kabo spinal cord-ka markaan kala jaro. Talaabada koowaad wuxuu leeyahay, waxaan isticmaalayaa sakiin aad af u leh, weliba qaas ah oo qaliinkan uun loogu talagalay. Qiimaheeduna wuxuu gaarayaa $200,000. Kadib markaan ku jaro sakiintaasi, waxay suuragelinaysaa in meeshaasi uu ka dhalan nabar. Kadibna waxaan isticmaalayaa maado loogu magacaabo PEG. Dabcan maadadan dhowr jeer ayaa loo isticmaalay qaliimo lagu sameynayay jiirka iyo doofaarada, waxayna awood u leedahay in ay isku soo celiso xididada go'ay haddii la isticmaalo 3 daqiiqo iyo wixii ka yar kadib markii xididka la gooyo. Haddii aan isweydiino maxaa arrinkan loo sameynayaa oo qatar intaa dhan naf qof uu leeyahay loo gelinaya, fikrad noocee ah ayaa laga leeyahay? Fikradda guud ee laga leeyahay qaliinkan wuxuu yahay in la siiyo daryeel dadyowga la ildaran xanuunada jirka, kuwa oo sida Dr. Canavero uu ku tilmaamay jirkooda in uu iska dayacmayo ayagoo aynan ka faa'iideysan. Maadaama uu qofkan xaq u leeyahay in sida dadka caadiga ah howlihiisa u qabsado, sida daraadeed hadduu qaliinkan ku guuleysto, Dr. Canavero wuxuu leeyahay waxaa ka faa'iideysanaya malaayiin qofood ee qaba cudurka paralyze-ka. Anigu mushkiladaha ugu weyn ee fikirka igu reebay waxay yihiin: 1. waa kuma qofka jirkiisa la isticmaalayo. Dr. Canavero iyo kooxdiisa ma jiraan qorshooyin ay ku soo bandhigeen oo ay ku cadeynayaan dadka jirkooda la isticmaalayo. Kaliya waxyaabaha ay soo bandhigeen ayaa ah qofka madaxiisa jirka lagu beerayo waana ninka paralyze-ka qaba. 2. kaba soo qaad qaliinkan waa lagu guuleystay oo madaxiina jir cusub ayaa lagu beeray. Haddii shaqsigan uu wax dhalo, waa kuma qofka uu tirsanayo? Sababtoo ah waxaan ognahay isbaarmada ragga waxay ka yimaadaan gudaha jirka ee kama yimaadaan madaxa qofka. Haddaan si cilmi ahaan u eegno, canuga dhalan doona qofka asalka ah ee jirka laga soo qaaday ayaa lahaan doona, wuuna u ekaan doonaa weliba. Ma qofkaas ayuu ku magac tirsan doonaa canugan? Number 3, waan ognahay adduunka aan ku noolnahay wax ka socda, sida in nin raga uu iska dhigo qof dumar ah ama dumartii ay iska dhigto qof raga ayagoo qaliino galaya. Haddii qaliinkan lagu guuleysto, yaa damaana qaadaya in dadkan aynan si xun u isticmaali doonin? Tusaale, in ninkii ragga ahaa uu jir dumareed madaxiisa ku beeri doonin ama dumartii ay jir rageed madaxeeda ku beereen. Aniga waxay ila tahay shakhsi ahaan in ay sidaas sameyn doonaan haddii lacala lagu guuleysto qaliin noocan ah. Adigu maxay kula tahay? Fikirkaaga ila wadaag. Almuhim, qaliinkan uu sameyn rabay Dr. Canavero wuxuu qashuh ahaa in la fuliyo December 2017. 2017 waaba la soo dhaafay, ma la fuliyay qaliinkan markaa? Haddaan jawaabtu ku siiyo waa maya, lama fulin qaliinkan oo shaqsigii lagu fulinayay ee Valery Spiridonov ayaa ka laabtay go'aankiisa maadaama uu sheegay in uu arrinkan ahayn sida uu mooday. Wuxuuna leeyahay
kaliya markaan arko dhaqdhaqaaqa daanyeer nool ama dhaqdhaqaaqa jiir nool oo ka badbaaday qaliinkan, noolaadayna dhowr bilood ama xitaa laga yaabay sanado, markaas ayaan sameyn doonaa qaliinkan. balse arrinkan ma joojin rabitaankii Dr. Canavero oo ahaa inuu qaliin noocan ha sameeyo. Dr. Canavero wuxuu ku shaaciyay shir saxaafadeed lagu qabtay caasimadda Australia ee Vienna in asaga iyo ninka reer China ee iskaashiga kala dhaxeeya ay fuliyeen qaliinkii ugu horeeyay ee madax bani aadam lagu kala bedelayo. balse waxa qaliinkan lagu fuliyay 2 ruux oo dhintay, wuxuuna leeyahay in qaliinkan lagu fuliyo qof nool oo kaliya ayaa ah waxa hadeer haray ee aan sugayno. inkastoo dad badan oo ka mid yahay James Gordana oo ku takhasusay cilmiga neerfaha ee jaamacadda Georgetown uma maleeyaan in qaliinkan uu ku guuleysan doono ama xitaa uu u soo dhawaan doono guul. waxayna dad badan tilmaameen milyaamaadka dollar ee la rabo in qaliin aan la hubin lagu fuliyo meeqa shay wanaagsan oo lagu qaban karaa. sidoo kale dadka dhaleeceeya arrinkan ayaa sheegaya in ajandaha Canavero uu yahay kaliya kor isku qaadis iyo magac raadis, balse uunan ahayn in uu la yimaado hal abuur qaliin. waxayna leeyihiin xitaa haddii ay suurtagal tahay in awood loo yeesho in madax bani aadam ah qof kale lagu beero, ma ahan wax hadda dhacaya, waxaan uun sugnaa mustaqbalka iyo waxa uu la yimaado. bal waa maxay fikirkaaga ku aadan arrinkan? igolooda commentiga hoose, aad baan u jeclaan lahaa inaan aqriyo commentigaaga. waad ku mahadsan tahay inaad muuqaalkan daawato, maadaama aan waqti badan iyo juhdi badan soo geliyay, way farxad gelinaysaa inaad iga dhuuxdo macluumaadkan. fadlan haddii aad ka heshay laagare, lana wadaag asxaabtaada iyo qoyskaaga, wax badan bay inaga caawinaysaa. waa inoo muuqaalka kan xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. sidaa iyo nabadgelyo.